tani waa sheekada afar qof iyo kooxda ku caan baxday dilka caburinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan cagajuglaynta afduubka iyo cabsigelinta wariyaasha nabad iyo nolol saxaafadda dhammaantiin gudaha ku jirteen xukunka waa dhagaysateen saada wuxuu soo wacay yar kamida waardiyaha Cabdiraxmaan haddii alla ku roon yahay guura beri agaasimo ka ahaa jiray xilka looga qaado waxaan garan hadaba anigoo kamid ah milkiilayaasha shirkadda Bilicsan waxaan ku wargelinayaa ummadda Soomaaliya iyo cid go'aankeeda lahayd waa runtii waa la iska ogyahay muddo 3 sanad ah uu dawladdan hogaaminayo madaxweyne Farmaajo waxay gashay qaladaadkii ugu waaweynaa ee xagga caburinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan dawladda ama dhalinyarada aan ku qanacsanayn hab hogaaminta xukuumadda nabad iyo nolol tusaale 17 Sebtembar sanadkii 2017 xilli saq dhexe oo habeenimo ah ayaa sifa sharci darro ah sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Banaadir lagu weeraray guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku dhawaad 5 qof ayaa si bareer ah loogu dilay weerarkaasi 4 kamid ah waxay ahaayeen ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur halka qofka kalena uu ahaa darawalkiisa waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay xabsigana loo taxaabay hogaamiyaha xisbiga wadajir qudhiisa dacwada qaybteedii hore dhamaatay qaybtii dambana way furmi doontaa oo aniga xaq aan lahaa cidii ugu soo bana abuuratana beenteedii waa la cadeeyay waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka haysata waa laga gudbay xilligii qori caaradiis wax lagu noqonay dalkaana xilli dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya tariiq xogeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo xilliga uu weerarka dhacay ku sugnaa guriga hogaamiyaha ayaa ka waramaya qaabka uu dhacay weerarkaasi say ku soo galeen marka waxay ahayd saada wuxuu soo wacay yar kamida waardiyaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur staafkiisa oo is yaqaaneen ayuu soo wacay telefoonkiisa wuxuu ku yiri waa saadaq iga fur albaabka madaxweynahan u wadaayan Cabdiraxmaan maadaama uu ahay murashax madaxweyne أنا مدحويني على الوقت بسكنا مركو مدحوينها ورخد ولا يقفوا الويل كجوه نولا حضلي مركو ويل صادقوا يقين أوتوماتيك الباب وكفر وكفر ويل كحو داعي حرانتي يقول نفتانو يقول بعد كحي تما غاني وحبا مركو الباب كفر لا يقول نفتو داعي وصو حويل مركو حان دعايو دول كلكو يا لاب مرد دنبو كذلك سونا مركو ساسي كسوق مركو سوق قلين أسكرتو niman kan waardiyaha oo meel ay ku casheeyeen oo qaad u yaalo fadhiya ay u tageen xabadii ku qabteen saasay ku laayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi aad u dhaliilsan hab hogaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa wali ah cadaalad suge u ooman in laga meero dhibaatadii loo geystay labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaato xildhibaanada baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa dalka waxa lagu wada joogi karaa waa sharci cidii gabtay mas'uuliyadeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda kani waa Shaadoor Xaaji waa agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya xilligii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud si sharaf iyo mas'uuliyad ay ku jirto ayuu xilka ugu wareejiyay agaasimaha xilligan xilka haya Cabdinuur Axmed Shaadoor waxaa loo wareejiyay la talin warfaafin gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso Shaadoor ayaa ka qayb galay xaflad madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo bandhigay aragtida hogaamineed ee xisbigiisa wuxuuna madasha xafladaasi ku soo galay sabir uu ku muujinayo inuu ku faraxsan yahay ka qayb galka furitaanka xisbiga UPD ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh hay'ashee maalintii xigtay ayaa injineer Yariiso lagu amray in Shaadoor uu xilka qaadis ku sameeyo aan ka sii socono waa Abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore si kale haddii aan u dhigno waa maariyihii hore ee golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka walina ma aadan fahmin aan sii jilcino waa hal abuurihii hal heeskii ficil ahaan u hirgalay ee isxilqaan oo hadda lagu dhisayo xarumo badan oo ay dawladdu leedahay dhawaana la qorsheenayo in tiyaatarkii uu isaga dhismaha ku bilaabay xariga laga jaro war laga sii baahiyay idaacad uu leeyahay abwaanka lagana bixin kara raaligelin buuxda ayuu xilkiisa ku waayay waa dulqaadasho la'aanta ee xukuumadda hadda dalka ka jirta ee nabad iyo nolol xilka qaadista Abwaan Goore waxay ahayd mid aan loo marin nidaam sharciyeysan tusaale inta uusan Goore xilka qabanin waxa uu xilka agaasinka idaacadda uu ku wareejiyay Burhaan Diini Faarax waxaa jirtay wadooyin badan oo looga baaqsan karay xilka qaadista abwaanka sida in sharciga ay ku kala baxaan wariyihii ama taftirihii sababtu u ahaa baahinta warkaasi laakiin lama sameyn intaas waxaa loo bareeray Abwaan Goore oo dalka Turkiga jooga in si lama filaan ah xilka looga qaado anigu raadiyo kulmeed inta maareeyaha la magacaabinaya agaasimo ka ahay
maareeyaha markii la ii magacaabana haddii alla kuuran agaasimo kalaan xilkeedii ku wareejiyey maamulo kama ihi waa raadiyo madax bannaan oo magaalada ku yaalla marka haddii alla kuuran yahay war uu sheegay in la yidhaahdo haddii alla kuuran yahay guuraa beri agaasimo ka ahaa jiray iyo xilkaa looga qaado waxaan gara waaye laakiin haddana waa ku qanacsanahay in la iga qaado sababtoo ah marar badan ayaan la kulmay dhibaatooyin badan oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba ay ugu qabsadeen war idaacadda ka baxay ama haddii alla kuuran yahay barnaamijyo sheekooyin oo idaacaddu ay samayso. kani waa cabdiweli ibraahim aadan garyare muddo badan uu warbaahinta ku jiray kasakow waxa uu ahaa nin waqti badan qurbaha ku noolaa sanado kadib waxa uu jeclaystay in aqoontiisa iyo waaye aragnimada uu ka dhaxlay noloshii qurbaha uu ugu adeego dadkiisa duruufaha adag ku jira waqtiga doorashadii xildhibaannimo ee dhammaadkii sanadkii 2016 si uu xildhibaan qaran ee golaha shacabka uga mid noqdo ayuu juhdi iyo dadaal badan ku bixiyay laakiin musuqmaasuq uu kala kulmay guddigii doorashada xilligaas iyo cadaadis kaga yimid maamulkii galmudug ee uu talada u hayay cabdikariin xuseen guuleed awgi way u suurtagali weysay rajadiisii ahayd in uu ka mid noqdo tirada 275 xildhibaan guuldaradiisii ma aysan niyad jibinin muddo kadib wuxuu keenay hal abuur ku cusub guud ahaan geyga ay degto Soomaalida taasoo ah shirkad isgoysyada magaalada caasimadda ee Muqdisho ka dhista goobo ay shacabka gawaarida ku sugaan ayuu maal iyo maskax ku bixiyay bilicsan oo ah magaca shirkadiisa wuxuu ka hirgeliyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo magaalada Garoobe oo caasimad u ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland in uu dhaliilo siyaasadda xukuumadda nabad iyo nolol haddana waa nin aragtidiisa ama fikirkiisu cad yahay wuxuu rabana in uu ku hadlo aan cid kala gamban waa dad yaqaan aftahnimada ay u sii dheer tahay la jaanqaadka ama la socodka xaaladaha siyaasadeed ee dunida bilooyin oo ay xafiisyada shirkadiisu ay shaqooyin badan ka socotay sida xafiiska weyn ee magaalada Muqdisho kan Garoobe qorshuhuna ahaa in Hargeyso iyo Baydhabo laga hirgeliyo xarumo kale oo dheeri ah waxa xarunta Muqdisho booqday Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso maalin uu booqashadiisii farxadda ku dhahneed kadib maalintii xigtay waxa amar lagu siiyay in shirkadda Garyare uu mas'uulka ka yahay shaqo joojin lagu sameeyo ilaa iyo amar dambe sababtuna waxa lagu saleeyay in Garyare uu mucaaradka dawladda ka mid yahay Garyare oo ka duulaya amarka dawladda iyo xukuumadda nabad iyo nolol eegayana in muqaddas ay tahay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayuu go'aansaday in uu iska casilo mas'uuliyadii uu ka hayay shirkadda bilicsan anigu ma noqonayo ku mid raaca wadada ay raacday dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir haddii aad shalay maqla jirteen qashin xaafad laga guro niman hogaamiye kooxoodiyaha oo isbaaro u dhigto oo diiday in la qaado dawladda Soomaaliya maanta waxay bedeshay inay tiraahdo bilicda magaalada Muqdisho lama soo celin karo haddii aadan anigu gulwada ii ahayn waxaan ahay Maxamed Bulbul waxaan soo wadnaa barnaamijyo kale xog bilo ku xirnoo